يعرضو داجدي بيتك سنيسان دردر ليس الله انت وارر دبجوغنو ايدو مقوي ستان زنبدي وماي دبعي على هاي انت يريد دولين وسيدا درمادا ويا الميكو دباد المدى ولا نبض الميدان هدادوني جبدا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha odayaasha dhalinyarada oqaasha wadaadada dhammaantiin waa ku mahadsantihiin casuumaadda aniifadina sida nooga aqbasheen barnaamijkan aan ugu magac darnay sida ujeedin halkan waa multaqadii afraad sanad walbana mar ay qabtaan golaha dacwada albayaan mar labaad kusoo dhawaada ayaan leenahay haddii aan idin kormaro jadwalka barnaamijkeena aayadaha qur-aanka kadib waxaa jiri doontaa muxaadaro sheekh cabdullaahi oo noo soo jeedin doona sheekh cabdullaahi cabdi ibraahim kadibna sheekh maxamuud maxamed cadar ayaa wuxuu ka hadli doonaa barnaamijka iyo waxyaabihii lasoo qabtay intaba saas ayuu noogu socon doonaa waxaa jiro rag laga casuumay ilaa johannesburg oo dhakhtarra ah oo caafimaadka ka hadli doona ganacsiga nin baa loo xilsaaray xataa waxaa jiro rag soo afrikaan oo bangiyada qabka loo furtay iyo soomaalida ay ku dhibayiin ka hadli doona insha allah barnaamijku waa dheeryahay qada iyo wax walbana waa leeyahay ilaa ay galabtan qaadan doonaa su-aala iyo jawaabaad dambeyn doono marka insha allah waxaan rajeynayna lagu wada faa'iideysan doono waxaan kusoo dhaweeyay marka hore aayadaha qur-aanka cabdiraxmaan xeedar فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العظيم. عبد الرحمن حيدر إلى أجل حسنا كاسيو markaan waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo mikrofoonka sheekh cabdullaahi cabdi ibraahim oo muxaadaro ku saabsan faa'iidada midnimada iyo dhibaatada kala tagga ay leedahay insha allah sheekh ayaan kusoo dhaweynaya markaan. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد هذا waxaan ka cudur daaranayaa codka iga xidhan marka insha Allah naas ka soo koobana waa laga yaabaa arrintaas sababteeda sidaas walaalkeen ishaaray mowduuca wuxuu ku saabsan yahay faa'iidooyinka uu leeyahay kulanku faa'iidooyinka midnimada ay leedahay dadku midnimada inay ku dadaalaan iyo wadajirka faa'iidooyinka ay leedahay iyo maxay dhahdaa khatarta iyo dhibaatooyinka ay leedahay khilaafka iyo kala tagu dhibaatooyinka uu leeyahay waxaan uma inooga sheekayn maayo in badan inagu waan naqaanaa oo faraha kaga gubanay kala taga iyo ikhtilaafka dhibaatooyinka ay leeyihiin nin kasta noloshiisu ku arka sida ay tahay ilaahayna subxaanahu watacaala in badan buu qur-aanka inugu amray nabiguna sidoo kale sunnada calayhi salaatu wasalaam midnimada in la ilaaliyo la inooga digay oo la inaga nahayey ikhtilaafka iyo kala taga waxayna waa dhibaatooyinka ay leedahay alla waxa uu leeyahay subxaanahu watacaala wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahay qabsada dhammaan xaalo aad tihiin kuwo wada jira xadhigga ilaahay qabsada idinkoo isku duuban oo mida hana kala tegina xadhigga ilaahay waxaa lagu fasiray islaamka inuu yahay islaamka qabsada culimada qaarna waxay ku fasireen qur-aanka inuu yahay laakiin waa isla meeshii qur-aankaa ku dhigay islaamka qabsada xaalo aad tihiin kuwo mid ahoo isku duuban maxaa yeele waxa lagu midoobina waa islaamkaa wey wax kaloo lagu midoobi karaa ayaan jirinba qabiil laguma midoobi karo laguma midoobi karo xisbi xisbiya urur laguma midoobi karo laguma midoobi karaa maxaa idhahdaa dano kale oo la yeeshay laguma midoobi karo gobolaysi laguma midoobi karo waxaa lagu midoobi karo ummadda dhan isu keeni kara xadhigga ilaahay qabsada way subxaanahu watacaala واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا وحال حستان ودب أضو حصوصتان نعمة إلهي إذن سبحانه وتعالى صار هذا كهر أهاجرة الإسلام كاس كهر يهدى الساتهم نعمة وحال أهاجرة عدو بعد سوء أهاجرتين عدو قدركم إن عدو أصنع الله مصيبة وعذاب أدوه إن إسلايان إسخلافان عدو إسكتان محايرة هذا إسكور رفاضان نباتوين وين لكن إن المذوبان ولا على النقضان نعمة وين نعمة إلهي مركو حصة ساس هذا أهاجرتين يا مركاسات فأصبحتم من نعمته إخوانا نعمة إلهي سببت هذا ولا لكم نقطتين إسلام كاسات قوة لا لودين ولا لا إتجعل متحابين وإسكال ما يسكو انتفاع إسكرب صداد نقطتين نعمة يدبوا حصوصتا هنا كتنازلنا آيات وحال السياق لو حكوسه دقي لمنك يهودها ومدينة عربت اللي دقي شري لما دي قبيله أوسي خزر الأورنجري والنبي مركو معناها إسلام كقاتل والنبي سورنا عليه الصلاة والسلام يهودا اسكو دري جرتي لا هذا dadku isku dira yahuuda isku diri jirtay labada qabiil hubka iyo maxaa iraahdaa siin jirtay saarida siin jirtay ay hubka ayna dagaalku uga joogsanin laakiin markii ay muslimiin oo islaamku mideeyay waxa arkeen nimankii shalay colka ahaayo walaala ah isla qoslahay isla fadhiya isjecel mid baa wuxuu yiri mar haday nimanka midoobeen fadhi meesha inuma yaalo wiil yar buu u diro dhalinyaro wuxuu nimanka inta dhex fadhiisato waxaad ku qaadaa waagii dagaalkii bucaad la oran jiray dagaalada waa inay dhex mari jiray waxyaabihii gabayaasha isu tiriyeen dhexdooda ku qaad tuu dhex fadhiistay gabayaasha ku qaaday nafta bini aadamku waa iska daciif oo la iska halmaamay wixii baa dib loo xusuusto nimankii meesha baa muran iyo dood ka dhalatay asilaax baa ka dhacay hubka in la boobo umaa meel heblaa inoo balan abri dagaalkii hadda soo nooleynayna hadda wixii baa ka dhacay أرنت النبي قال عليه الصلاة والسلام آيات كان صوت قال أو بالدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ما أنا إذا لتشوف دعوة الجاهلية دي ما يعتبر قلنا قرصان أنا إذا لتشوف والدعوة الجاهلية دعوها فإنها ممتنة دعوة الجاهلية طلع يا هبة لكتها ووح قرمون أوريس ويانا إلهي الإسلام كإذا سي النعمة اللي محاضر حق فلسطين يا marka intay shadaabka intay wixii xusuustaan meesha laga soo galay garteena isku ooyaan gacmaha isqabsan ismu caaraqeeyeen wixii shadaabka iska naaray marka ilaahay subhanahu wa ta'ala aayaadkaas markay sii socdaan waxa uu hadana leeyahay wala takunu كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم هل نقولنا سيدي كوي كلا تجي اسخلافين
kuwaasoo kale idinku lamid ha noqonina intii aayaadkii diintu u timid kadib iyagoo diintii haysta oo diintu u timid kadib yay iskhilaafeen oo kala tageen kuwaasoo kale ha noqonina kuwa cadaab weyn bay aakhire leeyihiin maxaa yeelay islaamkii iyo aayaadkii ilaahay ay haystaan bay haddana waxa ay kala tegayaan haddana oo iskhilaafayaan haddana oo culoobayaan haddana oo isxallin kari la'yihiin haddana diintiina waa u timid min bacdi maa jaa'ahum albayinaat kuwaas cadaab weyn bay leeyihiin baa leeyahay aayad kale alla waxa uu ku leeyahay subxaanahu watacaala وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كان واجد كيدي أي سجى صار راع ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سجى صار راع جدك كليه وذيقوي كلنا إسك إلهية أو مركز جدك إلهية حقها قوة كلا حضرت كلا راعدان أيدي كلا جيس جدك إسلام قوة كان لكم يدوي الشيء لكن جدك قبيلة حضرت راعد كي إله وكاف جينيسا كي حضرت راعد ديمقراطية جدك إله وكاف جينيسا سبحانه وتعالى ولا إذا كلا جينيسا أذية متقن روح وراك يا مسلم كهوا إذا كلا جينيسا haddii aad raacdo kii wadaniyada sida oo kale kii gobolaysiga haddaad raacdo sida oo kale kii shuucida haddaad raacdo sida oo kale kii fulan haddaad raacdo sida oo kale kii urur hebel haddaad raacdo sida oo kale fatafaraqa bikum can sabiilihi kaas waa jidcadihi weynaa ee islaamka soo raaca sida kale tan iska ilaaliya oo haddaad kuwa kale aad raacdaan idin kala tagto idin kala erido oo jidkii ilaahay idin kala geyso idin kala fogaato oo kooxba ay meel kula dhacdo jid bay raaceen waxaa yeelay jidka ilaahay haddii laga leexdo bini aadamku isku hadaf ma aha bini aadamku isku hawo ma aha bini aadamku isku rabitaan ma aha bini aadamku ninba annaha waa leedahay maxaa isu keeni karnaa marka waxa ina xadayn kara oo ina wada dumi kara inagoo khadka islaamka weeye laakiin annaha waa leedahay aduu rabitaan ma ana mid baan leeyahay aduu kadaa baa tahay anna kadaa baan marka isuma keeni karno waa iskhilaafayna waa isku rafaadayna dagaal inay inaga gaadhaan laga yaabaa dhibaato badan baa dhici karta waxaas marka waxa la ilaahay inooga digayo wey ilaahay inaga xaramay inaga nahinayo subxaanahu watacaala waxayna arnaa jidka isaga oo islaamka ilaahay raaliga inooga noqday oo aakhire adduunka ballimaanteena ku jirto inugu filan kaasoo midka ayna amrayo isagaan ku midoobi karnaa isagaan isku jeclaan karnaa isagaan isku xiriirin karnaa isagaa inugu filan الله آيات كلا وحى كله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم إلهي سبحانه وتعالى والله نبي الله قطاع كوجا أيدي استجى نصر جيسا يدك مؤمنين تاه يا وألف بين قلوبهم إلهي ومنك يدك مؤمنين تاه قلوب طول يصد منوي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم haddii adduunyada waxa saaran oo dhan oo maal aad isu keen lahayd mu'miniinta yar inaad qulubtooda adigu isu dunto maad isu dumi kartaan qulubtooda laakiin ilaahi baa maal la'aan isu dumay subxaanahu wa tacaala ilaahi baa iimaanka markuu geli islaamnimada ku walaalaysiiyey laakiin bini aadam qulubtoodu kala jeedo haddii xoolaha adduunyada yaallo oo dhan aad ku bixisay inaad walaalaysiiso ma walaalaysan kartid qulubtoodana ma midayn kartid لكن إلهي وحكم ذي إيمانك إسلام فسوء الحكم ذي إستقام بدن إلا قبل اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا إلى بدنه إله قلوبنا ذي الصدق والإسكانيش على السيف إله نحن ذي فساد كسر وأن إصلاحي الله إلى كبرنا سبحانه وتعالى هذه كل هذا وحيامك لا حاول ما يسوك كلا قلوبتك كلا تقطي أو كلا انفرارتي الله آيات كلا وحى كله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هدودنا همرمنا اسقى قبصاننا او marka aad fashilantaan awoodiina iyo quwadiina ay zuusho intaad fashilantaan inaga taas waan isku aragnaa markaynu doodno isqabsanay oo islaynay waan fashilanay noloshii oo dhan baan ku fashilanay ilaa ma raxima rabbuka quwadiina waa zuushay heybadiina zuulaysa cadu baan idinka hibaysanaynin cadu baydaan iska celin karin waxbaydaan iska tani karin noloshana waa ku fashilmaysaa wadan qiimo badan oo waasaca oo fiican baa ilaahay lisii maxaa keenay intaan nolosha ku fashilano inaan dhahno isbitaal hana loo sameeyo dad bin aadamka inaan gacmaha u dhigano inaan dhahno dadkii waa maqmaqtin waxana la soo gaadho iyo inta hanoo soo mirmato dowladaha adduunka waxa ka codsanaa dadkan in la quudiyo wax la siiyo waa fashilaad maxaa keenay inaan bin aadamka ku soo carro dhahno sharciyaan u baahannahay baasaboortiina nasiya dhalashadiina nasiya waan u baahannahay keenii awey waan fashilanay maxaa keenay tanaasuc iyo dooda keentay yaa inaan dhul u baahna kale
baasaboor iyo sharciyo kale u baahano lacaga bini aadam kale u baahano bini aadamka aan tuugsano kale xukuma aan dhahno heshiisiya aan dhahno ciyaalkii maxasta noo haya aan dhahno fatafshaluu waa fashilaadda maxaa keenay tanaasuca qabsiga iyo murankan ilaahay inaga xarmi laakiin aan samayn weynay in amarka ilaahay u hogaansano taasaa keentay watadhaba riixukum quwadiinu intay zuusho afrikaan masaakiin oo shalay aadan qayrsan jirin adoo libaax ahaa dawacadii inay libaax kugu noqoto oo maanta waddankaagii ay military ka noqoto oo ay boolis ka noqdaan oo farta ay kuugu madaaraan maxaa keenay markay rabaan ay soo galaan waddankaaga markay rabaanna ay ka baxaan awooddeennii baa zuushay maxaa yeele quwada walaalka markaa taadii ka dhigan weyday oo quwada walaalka aad ka dhigatay inuu cadowgaagii yahay ood isku dayday inaad taa zuuliso ayada oo cadow aad ku zuuliso kale hadaa zuulay adaa zuulay waxaad macnihi qiimo ku leedahay qiimaha walaalka baad ku leedahay qiimaha walaalka haddaad garan weydo quwadiisa oo aad taa ilaalin weydo adigu wax tabarood yeelanaysa ma jirto away Andalus muslimiintii Andalus 8 qarni ka talin jiray tay gaalada ka furteen dhulkaas hadda Spain loo yaqaan oo awooda lahaa oo cilmiga lahaa 8 qarni 800 oo sano dawladda islaamka ka taagneed taariikh baa maanta laga hayaa bas waxay ku zuuleen markaad fiirisana jidka hadda aan ku soconay naftiisa tanaasuca say galeen way murmeen way fashilmeen quwadoodii baa zuultay yaa zuushay gaaladii ay waa hore adduunka ay ka eriyeen eeriyada oo meel fog kulli sana oo gibirka ay ka qaadi jireen yaa isku diri jirtay 7 imaarey noqdeen sida hadda aad maqlaysaan oo kale to gobolaysiga hadda Soomaaliya ka jiro kale sidaas oo kale ka dhacday 7 waxay noqdeen gobolaysi oo laalaanta hadda aad maqlaysaan oo kale tii markay dhacday waa la isku shiday marka kaas hadduu ka tabarroonaado gaaladu u yeeranaya marka hubka la siinaya marka hubka la siin Allah hubayn Allah waxayd iska calimaanay anaga kuugu tageynaa cabsoon anaga kula jira anaga ku garab taagan say isugu wadeen kii u dambeeyay soo haray kiima ku keenkeen marka daashiba ka qaadeen muslimiinta saddex baa la door galiyay imma wadanka inaad ka tagto adoo qaxoonta ka cararto wa imma inaad gaal noqoto oo kristan aad noqoto islaamka ka tagto waxa saddexay in lagu dilo saddex sano kii u dambeeyay ya kooxo la socday xaqay u soo talaabeen Marokay soo talaabeen meelahaas qaxoonti iskaga noqdeen iskaas ka soo xarreen in badan oo kamida maxaakim taftiish wax la dhahaa loo waxay waa la tirtiray wax kristan laga dhigo wax la laayo wax la cadaabo wax soo carro intaas loo qeybiyay taariikh baa ka soo hadhay sida hadda aan ku jir jidkaas weey ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ورسك ilaaliya cadawga iska dhiganina ha murmina war ha kala tagina ha iskhilaafina haduu khilaafi maanta isxalliya dhaxdina islaaxiya leeyka yaa subhanahu wa ta'ala hadaad yeeli weydaan iyar baad u daciifaysaan iyar baad u zuuleysaan wadamintana wala inuu khatar hadda markaan saan noqonay meeqa baasaboor baan kala wadanaa meeqa luqaa lagu kala hadlayaa meeqa jinsiyad baa loo kala nisba sheeganayaa ila akhir weelna wadankii sidii ku socdaa weli doodii iyo murankii sidii buu u taagan yahay shalay loogu baaba'ay intaan laga maalgeliyaa nafteeda iyo meelaha la midka ah halka waxa ka jira inta shir laga qaban Soomaa kaasaa lagu taageeri mid kala la qaban oo lagu diidayo ama kala lagu taageero laga soo horjeedo kuwaas markay dareemaan kuwa xaga ka taageeraya oo si adkaysan Soomaa warka daay saas ma warka daay war faraha ka qaada hadii kale wax uu khayr ah iyo wanaaga ku tara يا من نما ورسو تنازلا والإصلاحية والهشية والإسأفقرتا والخير الله إذن سيو والإلهي ما أركتي كعب صوضة الله نعم كده لصير الشضو ولي قد مدن ميسو ولا الليال تاسوا آيات كالله كمذا نبقى نوح أولي عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب جماعة إيا من نمضوا ونحرس رحمة الله وي فرقة إيا كرتقنا وعذاب أدون وي حيال المرة دي فرقة ما دوادرت العذاب أدون إلي تاي استلك يا عبصدة أمان حمدة ظلمك استدعى يا عذاب أدون بائما نبطي أوي قناشيه أوي لدانتي أوي ديركتي أوي
jacaylkii awey isjacaylkiina isnacayb baa bedelay walaalnimadii iscadaawisi baa bedelay ammaankii cabsi baa bedeshay dharagtii gaajaa bedeshay nin wadankiisi joogaad ahayd qaxoontini baa bedeshay waa cadaab adduun wey alfurqatu cadaab qulubtaa wasakoobi oo cuqdad iyo xiqdi iyo xasad iyo qurun balaaya ka buuxsami waa cadaab laakiin midnimadii jamaacadu waa raxmad qulubtaa nadiif noqon waa la isjeclaan walaalaa la ahaan awood iyo cizi iyo sharaf baa la yeelan uma jirtaa la noqon nabad baa lagu noolaan ilaa aakhirihi ya wadankagaad iska seexan adoo nabad qaba xataa wax buurna haddaadan helin yaa qalbigu waa kuu degan yahay wadankaagii baad joogtaa ehelkaagii baad dhex joogtaa adoon cabsoonaynin adoon balaayo qabin adoon qaxoonti ahayn ilaa aakhirihi waxaan rabaa insha allah inaan soo koobo dhibaatooyinka ay leedahay kala tagga dhibaatooyinka u leeyahay wax ka mid a iyo wax ka mid a faa'iidooyinka midnimadu ay leedahay in badan baan ka hadalnay midnimada iyo kadaaga laakiin inaan wax yar soo qodan baan isku dayay walaalayaal dhibaatooyinka kala tagga iyo khilaafka u leeyahay waxaa ka mid a kala taggaas iyo khilaafkaas waa min anwaaci lfitan weye fitnooyinka wax ka mida weye waa fitna mar haddii khilaaf yimaado kala tag yimaado waa fitna allana waxa uu leeyahay wattaquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa ka cabsooda fitan haddii ay dhacdo kuwii dulmiga sameeyey oo idinka idinka mida keliya aan ku dhacaynin ee dadka oo dhan galaafanaysa markii hadda inaga fitnadu inagu dhacday intii waday bisa miyay ku dhacay mise dadka oo dhan bay galaafatay dadka oo dhan bay galaafatay waxay rabtay lama arka haba yaraatee ilmihii haweenkii waayeelkii culimihii caamo kii berida ahaa kii waxba aan galabsanin mid kastay galaafatay xali waa fitna dhibaatooyinka kala taga waxaa ka mid a atanaazucu wataqalubu alacdaa walfashal yani muran inuu yimaado iyo qajijac cadowgu taad fashilanto saan sheegnay cadowgu inuu meel uu kaa soo galo iyo galduleel uu kaa helo oo halkaa kaaga soo dhaco deedna uu kaa danaysto markaa ida cadowgu uu kaa danaysto ya cadowgu uu kaa danaysto uu kaa danaysan uu kaa shaqaysan lisaalixihi waxyaaba asaga dan u abuu kaa qabsan oo kaa gaadhi adigana wuu kaa takhalusi ila cadowgaagu ahaa waxaa keenaya waa dhibaatooyinka kala tag iyo ikhtilaafku ay leedahay dadka muslimiinta lala hadlaya dhibaatooyinka waxaa ka mid a fitnada ya fiihi khuruujun calaa jamaacati almuslimiin jamaacadii muslimiinta in ruuxu uu ka dhex baxo ama gaal uu dabada la galo ama intuu keligii meel galo uu waraabo noqdo keligii wuxuu arka bedela wuxuu arkana dhaca wuxuu arkana kufsada iska waraabe meeshaa jooga ama koox buu wataa gaaluu dabada saari iimaankiibuu ka tegey gaaluu dabada saaray idinkaa walaalaha noo leeyahay nacaawiya walaalkiina wuu la dagaalamaya waa masaa'ibta ay leedahay kala taga walidaabaa waxaa la amray oo shareecadu ay fasaxday ruuxa jamaacada muslimiinta ka baxa in la dilo oo nebigu leeyahay calayh isalaatu wasalaam idaa ataakum amrukum waaxidun ya man ataakum amrukum waaxidun yuriidu an yufariqa jamaacatakum faqtuluuh ruuxii idin yimaado idinkoo midaysan oo uu rabo inuu fidno idinku dhex tuuro ruuxa isaga adila in la dilaa waa fasahaad sooma laakiin waxaa ka fasahaad badan inta la daayo faraha laga qaado inagoo dhan inuu ina galaafto oo ina kala geeyo oo ina fidneeyo walidaa fasahaadka yar baa la qaadan oo ah isaga in qoorta loo caseeyo kurka laga jara isaga ah si ummadaasi uga badbaado sharkiisa meeqa markii hore la fudaydsanayay oo intay dhibaato bilowday dadka oo midaysan fidnadii ay aada u weynaato markii dambe meel laga qabta la waayay lama xisaabi karo waxaa ka mid a dhibaatooyinka furqadu ay leedahay in fidnooyin ay dhacaan muslimiintii cadow iska dhigtaan muslimiinta cadow bay iska dhiganayaan arintaasna waa arrin xaaraama maxaa yeele muslimku muslim kale walaalkii weeye muslimiintu waa walaalo waa inay isxiriiriyaan waa inay isjeclaadaan waa inay cadowga dhinac uga soo wada jeedaan siduu nabigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam wahum yaduna calaa man siwaahum markuu muslimiinta ka hadlayay hal gacanay ka yihiin wax alla wix iyaga ka soo hadhay hal gacanay ka yihiin hal miday ka yihiin waa noocaas wey marka laakiin mar haddii fitna dhacdo ikhtilaaf uu yimaado cadaawad baa dhacaysa waxaa laga yaabaa qalbigiibaa wasakoobaysaan sheegaynayo marka noloshaba ku raaxaysan maahayaan ruuxaas xaali xiqdi iyo cuqdad iyo xasad iyo cadaawad iyo waxaasoo dhan buu ka buuxsamayaa waana waxaan fiicnay wey
حال الروح مسلمك وحال الربا مسلمين تورن إنه قلبه صافي وياه جنة لقوا قلا أرنتها أيضا جنة لقوا قلا لكن هذا مسلمين تقلبه قوة سخيسة أما قيب كمذا نباتة انت ذا الأكوين وحاكم ذا النباتين كأيلا هذا اختلاف في كلا تقاسو مسلمين تي إلى يعلسو يا إلى دعوة الجاهلية دعوين كي جاهلية ده طلع يا ريه بلا تعصب كي جاهلية دوي وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت إن غوت غزية إن غوت يا غويت وإن ترشد غزية أرشدي يعني العرب وهرايد وهذا قاب كأنه كالتا ريهم الكائنها أساسي أهنشرين قالوا أنو رين غزية أمان كمدها قبيل كيك هطيل تنوى للمي يا هطيها تنوى الله نون أساسي هطيها تنوى الله نون مركا ما هذا حن صمرد يقنانه يعني فقه التركي كما شنتهم أتانيك الشيخ فقيه حلا مسألة إنه خلده ريه بالدراد إنه خلده مركا دعاوى الجاهلية النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة فراها كقالوا وح قرمونا وريسيه دعاوى الجاهلية اسكداية إسلام كا إلهي إنسيو كقيمة بدن قصد ولا لكتهين رهبل عريري قبيلك وحمد باتمل رهبل واتهي وحي رهبل مسلمين ولا لها وقبيل كاغي وأهل كاغي دمله لكن تابع عن هذا ما دعوى الجاهلية إني كقول رداء الدنب أقشاء ضد كضل المضاء قبائش كلا ولا لهن قلا على تنتان ومايا قبيل كان رهبل النفتيسو أو قبيل ولا الكا كلا تأييد نفتوه قبل كل أول عليه هنا سوما اسكرب صدق ما حين هذا النوع عصوي لكن هدي مال اسكو حد قارة صالحان هذا صومالي هو حكيتشري يقولك صومالي دكتور نبى كسو قاده واسك عندنا نقولك تذكر واسك يريهم انت صومال هذا صعته waxaa dhigta meelaha qaarkood bini aadam in aad arkinba adoo yaaban oo wariyaad dadku tusay bini aadam aad reer meel kale wada ku soo baxdaa waa dhici karta مع ذلك هذه معان ميل إلى عميران ولو سبوده حلي ماشى أنا قاعد إسكله لما أقول أنا وحكي سميسه وإن وحلا سميه نقول لما قال لي نرشح كنت ماذا dadku inay isu yimaadaan oo isdhex galaan nolosha ku timaada adduunka ku hormara meel koox yar oo gaar isku xirxiraan miya horumar gaadhaba ganacsigu iyo dhaqaaluhu muxuu ku hormaraa bulshadu maxay ku hormartaa tacliintu maxay dadku inay isdhex galaan isu yimaadaan dhulka la magaaleeyo la dhiso nolosha dhan ma ka suuroobaysa horumar baa lagu gaari karaa laakiin koox yar oo kooban oo meel isku ooday dadkana ka celisay horumar miyay gaari kartaa horumar gaari karaan ma laha waliba adduunka waa u jeedaa magaalada ka dad badan tahay ka babaleeshin badan tahay waa ka horumarsan tahay xagga dhaqaalaha xagga maxaa ilaahdaa tacliinta xagga binaayo iyo dhismaha wadanka xagga kadaaga ila aakhirihi marka daad dhulka hal la cabiro eedaa ceelasha hal la qodo baraagaha hal la qoto makhaayadaha hal laga furto dhulka hal la cabiro hal deg faraha ka qaadadka dhulka ilaahay waa waasa subhanahu wa ta'ala ya noocaas weey waxaa kamid ah kala dhibaatooyinka kala tag iyo furqadu ay leedahay dadka inay naar ku rido naar ay u jiido axay loo muslimiin markay islaayaan intay culoobaan oo islaayaan naartii bay galayaan soo nabigu sheegay kaleey salaatu wasalaam idal taqal muslimaan bisayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar labada ruuxa muslimka ah haday ku kulmaan sayfaha isku dili lahaayeen kala dilay ka waxdilay labaduba ehlu naar weeye ya rasuulallah ka waxdilay waa la garto waa gacan ku dhigli saasu naarta ku galay laakiin kila dilay naarta muxuu ku galay wuxuu asaga naftiisu wuxuu ku dadaalay saaxiibkii inuu dilo laakiin asaga uma gacantii ka hormartay marka niyada xunta iyo go'aanka xun ee ulaha masna naarta ku galaya marka walaalayaal meeyna ahayn marka arintaasi aakhiri adu baseeg Soomaa waa aakhiri adu baseeg dadkii waxa macna la isku laayo oo muslimka walaalaha inta isku laaya waxa macna lahayn oo inta soo ruux ku dhimato oo rag fiican lagu waayo meesha in naarna hadana wixii naarta lagu galay hadana ay tahay wal billah oo aduuna lagu seego lagu luuflufo lagu dayacmo lagu rafaado oo qoxoonti lagu noqdo la isku dhaco aakhirana naar la isugu kaxeeyo wal billah laakiin adduunkana waxa lagu liibaanaya aakhirana janno lagu galay waxa weeye cagsigeed weeye badnamada lagu dadaala khilaafkii ma la xalliya
هذا اللي قلنا مية إياه لسك كنترول في دون كان الإسكاء العليا. عليكم السلام. هذا أنت هايتا كجبح وحارب قطبها إلى صوكه أيلاده فوائد أيلاده هي من دمده أيلاده وحاكم ذا فإذا من دمده أيلاده هي من دمده وحي رجوع هو نساوح كستان وبحر إلى قبسان كرنا هرمر كاستون دون وجاري كرنا هدي عربي سنة ثم واحد كستوان قبسان كرنا يا هدي أي محل هذا قالت هي جاتش عن كبحنا فقري على سكسرنا هذه تجهل إلى كبحنا وتعليم يلنا هذا نقطة إلى عذر كبحنا إسبيتالي أطباء سميسنا هذا نقطة إلى عدو إسكاع إنه إذا ما أنسنا هذه أي نوبة وح كستان تحديات كأدوك إنه هر إيمانية وأخذ بكرة هذا بدي سنة فإذا كذا وح كلام كاملة من دمه وحي رجوع عون إسلام كعظمة عزة شرفت المسلمين إلى صارته شرفت عزة يا قوة يا هيبة المسلمين إسلام كوحي كظاهر كرام من دمه اللي كظاهر كرام أنا أمي شفته فربضن ويسكت دوبا وحوق له ومن ملهم له إلى ملهم له مدأة وهل مسؤول له هل معمول له يا عليه مسلمين وقوة مديسيه ما لقى صوت قلم له ولا لقى عبصونا يا ولا إسكا إلى لنا إلى آخره إسلام كقيمه سأكون موقن لكن هذا صار هذا إسلام بارها إسلام كصوقل كل إسلام كأدقى مالك كاسو صار الشيخ هذا بس اللي أحسن وحكلته كميده إسلام وحالي من دمده waxay inoo suura gelinaysaa isku duubnaantaas cadaalad inaan helno inaan isjeclaano inaan walaalo ahaano midnimadaas ay inoogu suura gelaysaa ya isjacaylka cadaaladda walaalnimada la ina amray waxoo dhan midnimadaas ay inoogu imanaysaa haddii kale ma heli karno waxyaabahaas oo dhan waxaa kaleeto faa'iidooyinka ka mid a midnimada inay ka takhalusta midnimada waxay inaga baabi'inaysaa tacasubka jaahiliga iyo tolla ayaa reehebela يا أنك ريه بله يريه بالإسكندري واحد هذا ركتان اللي أدو شيدان من دملاس يا كنت خلص سوء نقبع بإنس يا نقبع بإنس حتى هذه انت قبيل ككر لغة يركوا حتى صومال ما اللي جود ذاله والدليل حتى اللي جود ذاله بس ما ينامله لكن إسلام ما بإله يسوي حرم بكوين بقى أو كفي عن أو كم عن ولا لمن إسلام كم عن كقيمة بدل يا من هي السنابة تلك النواحي إلهي كوجس دريوي لكن صح واستعمال محانا مركع علاقة وإلى أهاته وقوة أكثر علاقة الدين كإسلام وإلى أهاته أبي الإسلام لا أبا لسواه إذا افتقروا بقيس أو تميمي سلمان الفارسي ما يلبى لكم يقاس هذا يسوون غير فارس وحاء كي من إيران يا ماشى عرب على هاي لكن المسلمين تمركها أولتش عرب يا هاي مركها عرب تيم بدل كمدة حل جاس حل جوهرة قالوا ولي إسكاء هاي ويفان الجيران قاركود مركز الإسلام كسوق قليل ولد وحاكود دمبي وحامل عرات كجهرنا ولي كوس دمبي قاركود وحمال الغير فاني مركز وحول أبي الإسلام لا أبي السواه أنا أباي وإسلام كون يعني سلمان ابن إسلام بأنا يعني أباك الملي هو إسلام كان هاي هذا رير تميم كفاران أما رير قيس أي كفاران أما رير قيس أي كفاران وحاكم من الفوائد إلى الله من نمده إن كتخلصنا وحيامها عدو إنجوها يو طول الله أنتو إن جهل إسكو كنديل يو ضل كأنه كفائد سنة وإن جش قيسنا يو هذا المذا هانو وحصلنا وكتخلص له المال وإن جس وقالنا مو سهل واسك صار له لكن أنت إنسان هيدا عدو جروا إن جش قيسنا يا maxaa idhaahdaa inuu koox inaga dhigo oo group inaga dhigo maxay ku timid waxaan ku timid laakiin haddaan mid ahaano waxa soo dhan waa iska baabi'in lahayn insha Allah waxa kale oo kamida in midnimadu inoo suura gal lahayd yaani inaan baraka badan ku heli lahayn waxaan ku heli lahayn maxay leeyahay midnimada khayrka ku jira barakada ku jirta hatta raashinka la cunayo saxaabad markay soo dacwoodeen ya rasuulallah نأكل ولا نشبع وحنا وعنا من الدرجينه هو حال لقيا بين الجارجار وحكى العنتان وحور كل ما إذا كان سوى ذا الشرقة وذا الشر وحول عليه الصلاة والسلام والدرجة سنة والله إذا بركين يبارك لكم مركب من ماذا صار بركة كجرتها خير كجرتها نرش كبر كوبيسا وحكي سيقولوا كبر كوبيان لكن هذه الإسخلاف ولا كلا تكسر هذا
wax kasta barakadii baa laga qaaday xaalkuna khatar buu noqon walciyaadu billaah masaajid baa laga inta la isku qabsado masaajidkii in la xidho gabigiisa waa lagu kala tago soo ma ah madrasa yar la isku qabsado lagu kala cararo soo ma ah dhibaato weeye waxaa kaleeto faa'iidooyinka midnimada ka mid ah inuu cadowgu kaaga cabsoon markaad mid tahay adiga walaalkaa markaad mid tihiin isku duubantihiin cadowgaa kaa cabsoon ayla xoog baa tahay nin qiimalaa tahay nin jiraa tahay cadowgu markaa wuu kaa haybaysanaya laakiin markaa iskhilaafsantiin oo kala carartaan koox koox aad noqotaan wada tabar yar cadowgu kaama hibaysanayo dhaguhu kugu dhufanaya waxaa ka mid a faa'iidooyinka midnimadu ay leedahay dadka inuu nishaad geliyo inuu cizi iyo sharaf dareensiiyo laakiin cizigii baa kaa tegay haddii aad intaa iskhilaaftaan koox koox yaroo aan tabar lahayn aada noqotaan waxaa kaa tegi munaafasadii way kaa tegi inaad ummadaha kale la tartanto ummado jiro waaweyn inaad la tartanto waxa la qabsato la xisaabtanto iska dhiciso wixii oo dhan midnimadii kuugu iman haddii kale laakiin waxaasoo dhan dhinac baad uga dhiciyo ma haweysan karaysid maxaa idhahdaa waxaa kaloo kamid shaydaanka inaan iska dhex saarno midnimaday ku imaanaysaa shaydaanka inaan cadho gelino oon iska dhex saarno haddii kale shaydaankuna waa kaa dhex faa'iidaysanaya isaguna isku kindirayaa waa idin kala dilayaa xaaraamtuu idinku ridayaa qurun buu idinku ridi inta wax xumaysoo dhan buu idinku ridaya nin baa wiilashiisii la hadlahayay aan kusoo khatimi ah ninkii wiilashiisa la hadlayay waxa uu yidhi kunuu jamiican yaa baniya ida ctaraa khadbun walaa tatafaraquu aaxaada ta'ba alcisiyu ida ijtamacna takasura waidaa tafaraqa takasurat aaxaada oo takasurat afraada wiilashaydiiyow markay dhibaataya wax yimaadaan weligiin mid ahaada hana kala tegin oo mid ha u kala bixina markaasuu wuxuu tusaale ahaan ugu soo qabtay ulaha haddii ulaha la isku qabto way diideen inay jabaan lama jabin karo hadday mid ahaadaan lama jabin karo laakiin haddii mid loo kala qaado way kala jajabi bash baad ka siin laakiin haddaad isu keento isku qabato ma jabin karaysid waa tusaale cad wey noocaasoo kale wey haddaad koox koox u kala baxdaan koox kasta qiimo yeelan mayso haddaad qabiil u kala baxdaan qabiilla qiimo gaar u yeelan mahayo laakiin haddaad mid wada ahaataan ummadda islaamka qabaa'il bay ka samaysan yihiin waxay gobollo iyo wadaneed ka kala samaysan laakiin markay midoobaan oo saa mid ku ahaadaan wax u taag heli kara oo bini aadama lama arko wax ka adkaan karo bini aadama lama arko wax kastooy damcaan oo horumar ana oo diinta ku saabsan oo adduunyada ku saabsanna way gaari karaan haddii kale waxba ma qabsan karaan cadowna iskama dhicin karaan adduuna horumarka ma gaari karaan aakharana waa lufluufka aan sheegayno isku soo duuduub oo khilaafka ee kala tago muslimiinta dhexdooda dhacaayay aakhariya adduunba waa lagu seegaa aakhariya adduunba seeg weeye iska cad walaalayaal waxaa ina badin karaa waa islaamka isaga muslimkuna waa walaalka ree hebel waa walaalaha waa dad muslimiina soomaalida unbaaba isu darane waa dad soomaaliya waa dad muslimiina waa dad walaalaha ah jeclow khayrka la jeclow xoogooda hadday xoog yeeshaan waa kaagii insha allah ha ku xastin ha ku waxaysmin laakiin cadowga ugu jinjimo tuuro cadowgaas khatarta ahee meel kasta kaasoo fiirina ugu jinjimo tuuro iskaga dhici insha allah midku ahaada gruubka inaga daaya gobolka inaga daaya qabiilka inaga daaya muslimkaasaan nahay meeshaa ilaahay ina dejiyay subxaanahu watacaala ya calaaqo oo dhan baa inaga dhaxaysa waa inugu filan tahay insha allah waasaca kore aynu u baxno cidhiirigana hoose aan iska dhaafna insha allah ya qabiilkan lama diidana waa wax jira laakiin sidii loogu talagalay ha loo isticmaalo bas